السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرمهنا ومانتو كنت سيسدو لو استعمالو أشامبو ستوديو 2010 أشامبو حق سودك سنسا لينكيغان ويب سايت كان ديسكربشن كقري داونلود ayaa ku dhufanaysaa isla markiiba uu ku soo degayaa waa 30 megabyte marka uu soo dego kadibna waxa ku sameynaysaa extract waan raarisaga aniga download kan waa kansalayaa sababtoo ah waa ii degsan yahay waan haystaa marka adigan ku tusay halka soo degsanaysid okay after download markuu download ka dhameeyo waxaad u arkaysaa sidan had ku muuqata waa extract file waxa ku sameynaysaa extracting zip right click kadibna waxa ku dhufanaysaa extract files waxa raasugaysaa waxa la folder ahaan inuu ku siiyo kadib halkan waxa ku dhufanaysaa okay ayaa riixaysaa waxa raasugaysaa isla markii wuxuu ku siinaa isagoo folder ah ka aan soo jiido waxa drag aan sameeyo halkan aan keeno waa kan ku muuqda aan furaya double click aan ku furaya ama right click open waxaan rabo kadibna halkan ayaa folder kale ku arkaysaa furaysaa folder kaas kale waxa ku sii jirto shampoo serial number iyo shampoo setup asagoo software ka marka midkan aan right click dhahaya kadib waxaan ku dhufanayaa open waan install gareynayaa halkan waxa ka dooranaysaa luqad waxa ku jirta Dutch iyo English marka English aan dooranayo iyada international kadib okay ayaa ku dhufanaya halkan waxa ku dhufanaysaa next halkaas kore ay accepted kadib next ayaa ku dhufanaya marka la next haddana next ayaa ku dhufanaya riix next weli marka la haddana next haddana waxa la sugaysaa marka intuu ocean ka dhameynayo intaan markuu dhameeyo kadib waxa ku dhufanaysaa finish riixaysaa halkaas checkmark ka qaad finish ayaa ku dhufanay isla markii waxaad arkaysaa inuu ku soo kaco browser internet explorer ahaan isagoo ku dhahayo update ku sameey marka internet explorer ka uu ku soo kacayo iska xiraysaa close alaysa marka xirad kadib waxa soo kacanaysaa shampoo studio waa kan muuqaalkan ayaa ku arkaysaa right click open aan furaya markuu furo kadib wuxuu weydiin doonaa serial number-ka inaan active ka dhigo marka adigan ila arag waxa ku soo baxaysa sidan hadda ku muuqata halkan hoose waxa ku dhufanaysaa enter key click siinay kadib waxa ku dhufanaysaa okay riixaysaa okay waxa uu noqonaysaa folder-kii oo aad soo degsatay shampoo-ga si aad u soo qaadatid serial number-ka marka folder-ka ku soo noqdo waxaan furayaa midkaas aad u jeedid shampoo 2010 serial-kii ay ku qoran tahay open ayaan dhahayaa marka furo kadib waxaan arki doonaa serial number-kan waxaan highlight garanayaa control A right click copy aan dhahayaa kadib waxaan u noqonayaa shampoo meesha serial-ka la dhigi lahaa halkan ayaa imanaysaa right click paste aad dhahaysaa kadib waxaan ku dhufanayaa register oo jeeda isla markii the key code was accepted thank you asku dhahay okay ku dhufanay ala aqbalay code-ka waa jira okay waxay raasugaysaa loading uu sameynaa kadib waxaad ku arkaysaa sidan halkan waxa ku dhufanaysaa okay wuxuu ku dhahaa update aad u baahan tahay inaad update ku sameysid muhiim ah laakiin okay iska dhufo waxay raasugaysaa marka aniga update-ka marka la xasuusiyaan remind me later aad ku dhufanaysaa marka la xasuusiyo update marwe intaas kadib markaad sameysid kan close ayaa iska dhaysaa wax xiraysaa marka hadda waxaan ku tusinayaa sida mp3 loogu duubo cd aad ku dhageysan kartid gaariga baaburkaaga ama stereo marka dib waxaa imanaysaa ban oo music markaad duwaysid mp3 halkan hoose midka saddexaad ayaa imanaysaa kadib halkan ayaa soo dhexgalaysaa waxaad dooranaysaa create an mp3 create an audio cd waa dhihi kartaa laakiin mp3 ayaa ku dhufan mp3 isaga wax badan qaadaya music okay intaas markaa sameys kadib sidan ayaa arkaysaa halkan waxaa ka dooranaysaa add aad ku dhufanaysaa soo dooro oo ay documentiga meesha uu ku yaala ama heesaha musica folder-ka uu ku yaala desktop ay imaanaya kadib folder-kan ay ku qoran tahay hees ayaan rabaa wax ku jiro control A ama drag and drop waa isticmaalaysaa waa ku korjiiday kula dooranaysaa kadib add ku dhufanaysaa waxay raasugaysaa kadib waxaad arkaysaa muuqaalkan midkan finish ayaa iska dhahaysaa mar labaad intaan kadib markaa sameysid waxaad arkaysaa inta aad soo dooratay iyo inta size ay ka kooban yihiin muuqaalkooda kor dheeraa ka arkay marka halkaas kore waxaa ku qoran kartaa cadaaladaada magaceeda ama adiga magacaaga ku qoraa waxaa rabtid marka aniga hadda waxaan ku qorayaa arrimaheena music
okay intaas markaas samaysid kadibna hoos ayaa soo daadegaysaa halkan waxaa ku dhufanaysaa meeshaas ku muuqata next ayaa ku dhufanaysaa si oo macnaha daatada ay u duwanto marka next aad wuxuu ku weydiin doonaa inaad gelisid CD faaruq ah ama DVD waa kan sida ku muuqata dad wuxuu ku tusinayaa cajalada soo fur geli cajal faaruq ah cajalad faaruq ayaa gelinaysaa marka cajalada faaruq ayaa gelisid wax kuma taawanaysid si automatic ah sidaan ayuu raadinayaa please wait uu ku dhahayaa waxa uu sugaysaa cajalada inay faaruq tahay in kale isaga ku sheegay haddii faaruq tahay wuxuu saari doonaa calaamad sax ah oo cagaaran ayuu saari doonaa waa kan sida ku muuqata okay hadda cajaladan waa ku duwan kartaa waa faaruq kadib waxaa sameynaysaa hoos ay soo daadegaysaa halkaas waa ku dhufanaysaa right CD kligaasina waxa uu sugaysaa wuxuu sameynayaa buffering macna writing uu sameynaa daatada ayuu CD ku duwaya MP3 ga howshaas uu sameynaya waa sugaysaa intuu ka sameynaa arag writing MP3 CD uu ku dhaxaya markaa sugaysaa xoogaa inta uu ka dhameynayo wax yar ay qaadanaysaa markuu dhameeyo si automatic ah cajalada banaanka ay soo bixi doontaa markuu dhameeyo oo duubista uu dhameeyo cajalada si automatic ah ay banaanka soo bixaysaa wuxuu ku dhahayaa waa duuban tahay way ku shubantay waxaad ku shubaysay marka la arki doonta adigana waxaad sugaysaa markii marxaladan uu joogo okay intaas kadib sida hadda ku muuqda wuxuu ku dhahayaa MP3 CD recorded successfully uu bixiyay uu duubay si rasmi ah ayuu duubay okay ayaa ku dhufanay kadib halkaas kore wuxuu ku tusinayaa in ay dhameysay CD recording u dhameeyay MP3 recorded successfully okay marka hadda way ku duwan tahay cadaalada MP3 ga waa ku dhageysan kartaa gaarigaaga baawurka ama radio oo DVD player wax walba ku dhageysan kartaa marka waan rajeynaa casharkan waxaa soo weydiisay gaar walaashay ah marka insha Allah waan rajeynaa inay ku faa'iidi doonto assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh see you ama bara